kulanti wacan asxaabey kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay waxaan eegi doonaa kulamadii maanta la ciyaaray iyo waxyaabihii laga diiwaangeliyay Brazil iyo Portugiiska oo iyaguna wareegga 16 iska xaadiriyay kaliya wareegga labaad ee gruubada waxaan haynaa 3 xul oo kaliya waxa xaqiijistay inay u baxeen wareegga 16 Benzema oo laga wacayo xulka Faransiiska iyo Real Madrid oo arrinkaasi ka soo horjeeda suuqana waxbaan ka taaban doonaa saaxiibayaal muuqaalkeena inteena bilaabin like saar sina share gareeysa asxaabadan ay gaadho haday tahay markii ugu horeysay aan soo booqatana fadlan rukumo oo kambaleel kara furo saad la socoto warkii ugu dambeeyay dhaaqa suuqa klibsiga iyo waxyaabaha ku cusub kooxdada mar labaad soo dhawaad saaxiibayaal hadii ku bilowno kulankii hadda soo dhamaaday ee Portugiiska iyo waliba Uruguay Portugiiska ayaa caaw ku tuntay Uruguay 2 gool oo ka yimaadey Bruno Fernandes ayaa xulkani Portugiisku ay ku xaqiijisteen in wareegga 16 ay sidaasi ay ku aadeen runtii caawa waxa Portugiiska ka dhaawacmay Nuno Mendes oo half korba daqiiqadii 40aad la saaray runtii ninka markuu dareemay inuu dhaawacmay waa qiirooday oo waa kulanka waa ooyay markuu ogaaday inuu soo gaaray dhaawac xoqani laakiin waxa muran badan uu ka dhashay kulankani goolkii Ronaldo inta markii Ronaldo goolka loo qoray haddana imika la shaacay in Ronaldo goolkaasi aanu lahayn oo haba yaraatay wax madaxa Ronaldo ku taabtay aanay jirin ee kubadu kaliya ay madaxiisa ay dul martay goolkaasina Bruno Fernandes ayaa caaw loo qoray oo 2 gool ku turtay Ronaldo goolkaasi caaw waa loo diiday laakiin xulkiisa Portugiisku waxa uu noqday xulkii saddexaad ee iska xadriya ku darso waana groupka ugu dambeeya ay ku jiraan Portugiiska iyo Uruguay iyo Ghana iyo waliba Korea Republic laakiin Portugiiska iyo kaliya imika waxaan haynaa waa 3 xul oo kaliya oo iska xadir wareegga 16 3 xul oo kaliya intii kale iyo gruubyadii kale wali uma kala bixin waxaan sugnaaba waa wareegga saddexaad ee gruubyada ee maalinka bariya bilaami doona markaasi ay bilaami doontaa sheekada xulka baxay iyo xulka soo haray laakiin caawa Portugiisku waa iska xaadiriyay Uruguayna waa ku tuntay Suarez iyo Cavani iyo waliba xidiga kalaba qiir bay ku jira xaaladoodu kaliya waxa uga dhiman waa kulanka Ghana waa guuleystaan waa soo bixi karaan wali xitaa la Korea laftigeedu waa soo bixi kartaa hadii Portugiiska ay garaacdo runtii groupkana wali uma kala bixin Portugiiska oo kaliya ayaa ka soo dhaxbooday wareegiisa 16 xaqiijisay Brazil ayaduna caaway Switzerland gooliyay bar ku garaacday gool soo daahay oo Casemiro ugu tuuray runtii Casemiro ayaa caawa gool saaruuq dhaliyay inkastoo kulanka Neymar oo dhawac ka maqnaa xulkana Brazil Casemiro ayaa kulankan noo doortay man of the match ninka ugu fiicnaa kulankani waxaan arkay Neymar oo amaan ugu qabeen ninka Casemiro oo leh waa daafaca dhexe amba sigiska ugu fiican adduunka soo ku tilmaamaya kadib goolkii saaruuqa xulkani Brazil ugu xaqiijin wareegga 16 ku aaday Neymar oo kulankii dhawaay Serbia dhaawacmay ayaa saas soo qoraya runtii kulankan waxa ku sugnaa xiliye fara badan oo xulkan Brazil waxa kulankani wada daawanayay Cafu Kaka Roberto Carlos Ronaldo Nazario xitaa la waxa arkay waxa daawanayay toobari hore Arsenal Anze Wenger oo kulankan daawanayay xitaa madaxweynaha Liberia George Weah wiilkiisuna xulka Mareykanka uu matalayo ayaa kulankani daawanayay Brazil kubadooda quruxda badan soo doontay xidigahan la jankina kulankani waa daawanaya Kaka iyo Roberto Carlos iyo Ronaldo iyo Cafu ragaas oo dhan ayaa daawana ragii 2002 World Cup-ka ku guuleysanay waana markii ugu dambeysay xulka Brazil kulankan xaadir buuxaani iyo waliba saaruuqi uu dhalinayay Casemiro oo kulankan loo doortay ninka ugu fiicnaa ee man of the match-ka farta laga saaray kadib xulkiisa ugu xaqiijiyay wareegga 16 inay gudbaan waxa lagu soo waramayaa in Karim Benzema xulka qaranka Faransiiska dib looga yeeri karo hadii uu si dhaqso ah ninkan ugu soo laabto dhaawaciisa ugu soo laabto uu taam noqdo waxa looga yeeri doonaa xulkan oo dib ugu soo waayo wali lagama saarin xulka oo waa kii toobarahan xulkan Faransiiska ee Deschamps oo diidin bedelkiisa uu yiro laakiin arintani waxa ka soo horjeesatay Real Madrid ayaa waxay arinkani waa ka biyadiiday laakiin waxa wada uma laha inay Benzema ay ka joojiso qaranka hadii Benzema 100% uu fid noqdo awoodi ma laha Real Madrid ay ka joojin karto Deschamps ayaa hadii ogolaado inuu Deschamps uu
Benzema kusoo laabto cidna kama joojin karto runtii. Waxaan lagu soo waramayaa ninkan uu si dhaqso ah ugu soo laabto ilaa ay noqoto 16 inuu kusoo laaban karo. Waxay ka dhigan tahay in sida Neymar ninkan gurbida uu seegi karo waa haddii uu kusoo laabto xulkan Faransiiska uu leeyahay Benzema oo sida noogu soo laabto iyo sidaan aragno oo labadii kulanba la guuleysto 16 sii joogo mar labaad xulkan Faransiiska looga boqo. runtii xulkani awoodooda muujiyay Portugiiska iyo Faransiiska iyo Brazil waa xulka ugu awoodda weyn xil horeba iyagu waxoodu muran ma gelin wareegii labaad baa si xaqiijin 16 ay tageen xulka kale naga daba kaalaya ay leeyihiin. runtii saddexdan xulba awoodooda waa xaqiijin looga baqaa anugu leeyahay saddexduba inay ku guuleystaan waa caqli waayo kuwii kale waxoodii waxa uu galay qiiro kulanka saddexaad ay ka xirantay xulal fara badan waa hari doonaan. runtii maalinka bariya aynu wareegga saddexaad ee loo kala reebayna oo inoo bilaami doonaa. dhanka suuqa waxaa lagu soo waramayaa in Liverpool ay hogaaminayso saxaaxa xidigan reer Ajax iyo waliba Ghana ee maanta goolasho u dhalinaya xulkan Maxamed Kudus maanta labada gool ku tuurnay ay waxa lagu soo waramayaa Liverpool ay hogaaminayso ay doonayeen Ajax ay ninkani ay ka soo iibsato waxayna doonaysaa sidii Luis Diaz iyo waliba sidii Mane kula soo wareegtay in Liverpool ay ninkani ay soo qaadato. wali Liverpool baashiiseedii Mane waa tabisa baashiiseedii Mane uu soo jabsan jiray oo soo burburin jiray oo kubadda soo dagaalami jiray waa tabisa xidig malaanin cajaba ayuunba booskiisa buuxin karay isleeyahay. ninkani waxaa leeyahay Liverpool iyada hogaaminayso Jurgen Klopp waxa uu doonayaa booskii Mane in Kudus uu ku soo buuxiyo. Liverpool ayaa ninkana hogaaminaysa. waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay madaxweynaha kooxda Juventus iyo ku-xigeenkiisa Angeli iyo Nedved waxa leeyahay iska casileenba maamulka kooxda Juventus gibi ahaanba iska casileen. warkana waa official oo saasi ayay ku dhawaaqeen ay labadoodiba ay iska casileen oo ay shaqada kooxdan Juve madaxweynihii iyo waliba ku-xigeenkooduba ay labadoodiba si official ay soo casileen. runtii wareegii saddexaad ee groupida World Cup waxay noo bilaami doonaa maalinka bariya inkastoo wali aynu hayna saddex xul oo kaliya oo 16 soo baxay waa Portugiiska, Brazil iyo waliba France waa saddexda xul ee awoodooda muujiyay. runtii Britolana group A iyo group B ayaa lagu kala bixi doonaa. Netherlands iyo Qatar runtii Netherlands hadii ay basiido groupka saasi ka soo bixi doonta laakiin kulanka maalinka bariya indhaha lagu waday qadariyadu xulka si haray ay ka mid tahay laakiin kuwa indhaha lagu hayay waxa weeye Ecuador iyo waliba Senegal kooda badiya kiina roon un baa reerka u haray labadooda dhinacba min 3 dhibcood ay wataan kii badiya ayuunba groupkani kasoo dhex boodaya. Wales iyo waliba England groupkana indhaha laftigiisa lagu hayay Ingiriisku xalkoodu waa Bale Britole xulkiisa laftigiisa waa badbaadin karaa. Ingiriiska xalkoodu iyaga ma fiicno. United States kulankii ay lahaayeen waxaynu ka arkaynay ilama fiicna aniga habeen dambana waxa loo baahan inay dagaalamaan si ay xaqiijistaan World Cup kooda in 16 ay gudbaan. sidoo kale Iran iyo waliba United States ba laba kulan waa soo barbaraysay haddii kulankani badiso groupkii si nadiif ay uga soo bixi doonto haddii ay badiso laakiin Iran iyaduna guul ayaa laga rabaa. runtii groupkan group B laguma kala bixin xul haray iyo mid baxay toona ma jiro mid kastana waa bixi karaa mid kastana waa hadhi karaa. waa England oo sareysa iyo waliba United iyo Wales oo hal dhibicista mid waliba waa bixi karaa. runtii waxaan la ciyaari doonaa maalinka bariya horta groupkiiba hal mar ay soo dhacaya 6 waxaan daawan doonaa kulamada Netherlands iyo Qatar iyo Ecuador iyo Senegal halka 10 habeenimo ay wada daawan doono Iran iyo United States iyo Wales iyo Ingiriiska laba xul oo kastaaba hal saac ay soo wada dhici doonaan waayo lama rabo in si eegto in xul ay siinayaan waxa la rabaa in hal mar natiijada la wada ogaado group walba ka haray iyo waliba ka soo baxay. wararkeena ciyaaruhu waana inta saaxiibayaal intaynu ku kulmi doono wararkeena kale. wassalaamu calaykum.